Assalaamu calaykum caruurey. Maanta waxaan baranaynaa sheeko cusub. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa dharkii dadka caqliga badnaa. Sheekada sidan ay ku bilaabanaysaa. Waa hore oo qadiimi ah ayaa waxaa jiri jiray nin boqor ah oo aad u jeclaa dharka. Shaqadii maamulka dowladdiisa iyo dadkiisaba wuxuu u dhiibay wasiiradiisa, asagoo aad ugu mashquulsanaa dharka, labiskiisa, soo iibsashadiisa iyo ka sheekaynta dharka. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u yimid boqortooyadiisa laba nin oo sharqaanle ah ama dabaarle ah. Labadii nin oo sharqaanle ayaa dadka waxay ugu sheekeeyeen inay toli karaan dhar aad u qurux badan oo quruxdiisa weligiis aan la arkin. Dharka dushiisana ay ku sawiri karaan waxyaabo aad u qurux badan. Fabrikadiisa iyo qaabku u samaysan yahayna inuu yahay sida sixirka oo kale oo aan la arki karin. Gaar ahaan uusan arki karin qof aan caqli badan lahayn ama xikmad badan lahayn. Ninkii boqorka magaalada ka ahaa ayaa wuxuu maqlay warkii labada sharqaanle dadka ay ugu sheekeeyeen. Aad ayuuna ugu farxay warkaas, sababtoo ah wuxuu ahaa inuu xirto dharka dadka xikmada iyo caqliga u saaxiibka ah. Boqorkii ayaa mid ka mid ah ilaaladiisa u diray inay u soo raadiyaan labadan dabaarle oo magaalada yimid. Kadib labadii nin ayaa la soo helay, waxayna soo gaareen qasrigii boqortooyada. Boqorkii ayaa ka dalbaday inay u sameeyaan dharka ugu fiican. Labadii harqaanle ayaa aad u farxay, waxayna weydiisteen xoolo tiro badan, maadaama dharkan uu yahay dhar aan caadi ahayn oo sida sixirka oo kale ah, uuna qaali yahay alaabta lagu sameeyo. Boqorkii murug weyn kuma haynin lacag iyo xoolo. Wax walba ayuu siiyey labadii harqaanle oo ka badan wixii ay weydiisteen. Labadii sharqaanle ayaa lacagtii ka qaatay, gurigoodana u laabtay. Markii gurigooda ay tageen ayay qosol kala daateen. Waxay ku jaasjaaseen ninka boqorka ah doqonnimadiisa iyo sida warkooda uu u aaminay. Dawaarlihii koowaad ayaa wuxuu ku yidhi kii labaad, weligaa ma aragtay nin ka doqonsan boqorkan? Dawaarlihii labaad ayaa ugu jawaabay, saaxiibkaygow, maxaa naga galay doqonnimadiisa? Xoolo badan ayaan ka dhargeynaa. Dawaarlihii koowaad ayaa qoslay, wuxuuna hadalka u sii raaciyey, dadka caqliga badan mooyee boqorkan weligiisa ma arkaayo, sababtoo ah waa nin doqon ah. Dharkanne nin doqon ah ma arki karo, dadka caqliga u saaxiibka ah oo keliya ayaa arki kara. Labadii dabaarle ayaa cayaar laadhuu iyo cayaar baashaal kale muddo dheer ku mashquulsanaa. Dhowr maalin kadib ayaa waxay maqleen qof albaabkooda soo garaacay. Markii albaabka ay fureen ayaa waxay arkeen nin waayeel ah oo aad u dheer, lehna gar aad u weyn. Wuxuuna xidhnaa dhar aad u qurux badan. Gadaashiisana waxaa taagnaa 3 askari. Markaas ayaa ninkii wuxuu yidhi, waxaan ahay wasiirka koowaad ee boqorka. Boqorkii ayaa isoo diray, wuxuuna i weydiinayaa inaad u tosheen dharkii uu arkayay oo keliya. Qofka xikmadda leh iyo qofka caqliga badan uusanna arki karin qofkii doqon ah. Ma u tosheen dharkii ugu fiicnaa, sababtoo ah boqorka wuxuu xirtaa oo keliya dharka kan ugu fiican. Labadii harqaanle ayaa dhoola caddeeyey. Harqaanlihii koowaad ayaa soo dhoweeyey ninkii wasiirka ahaa, wuxuuna ku yidhi, waxba ha ka murgin wasiirkaygow, hadda ayaad arkaysaa dharka. Dabaarlihii koowaad ayaa wuxuu amray dabaarlihii labaad inuu soo xaadiriyo oo keeno dharkii. Dabaarlihii labaad ayaa qol meesha ku yaalay galay, kadibna gacmihiisa ayuu kor u soo qaaday sida inuu wax sido oo kale. Laakiin wasiirkii ma arkin waxa uu dabaarlaha sido. Dabaarlihii koowaad ayaa orday. Wuxuu u orday inuu caawiyo dabaarlihii labaad, asagoo dharka taataabanaya. Wuxuuna ku yidhi, wasiirkaygow, ma u jeedaa sida uu qurux badan yahay dharkan? Alla maxaa ka qurux badan dharkan? Ninkii harqaanlihii labaad ayaa ku raacay oo yidhi, midabkiisa qurux badnaa, ma u jeedaa wasiirkaygow, midabadan quruxda badan? Wasiirkii koowaad ayaa yaabay, wax uu arkay ma jirin, wax dhar ah oo gacantiisa ay dareentayna ma jirin, wax midab ama dun ama hool meesha ka socotay dhar lagu sameynayo uu arkayna ma jirin. Wuxuuba ka shakiyey in indhihiis ay wax si ka yihiin oo indhaha uu ka jiran yahay, ama inuusan ahayn nin aan caqli badan lahayn. Wasiirkii ayaa naftiisa su'aalahaas weydiiyey, isagoo fiirinaya labadii harqaanle. Aniga doqon miyaan ahay? Ayuu naftiisa hoos isku weydiiyey. Wuxuu wasiirkii ka cabsaday in ay dadka u maleeyaan inuu doqon yahay, haddii uu u sheego inuusan arkin dharkii ay arki jireen dadkii xikmad iyo caqliga badnaa oo keliya. Kadibna wuxuu ka cabsaday in boqorkii shaqada uu ka buriyo ama shaqada laga ceyriyo. Wuxuu sidoo kale ka welwelay in wasiirka labaad uu ku jaasjeesi doono hadduu ogaado inuusan arkin dharkii dadka caqliga badnaa oo keliya ay arki jireen. Wasiirkii da'da ahaa ayaa wuxuu yidhi,
waa dhar aad u qurux badan midabadiisana aad u qurux badan yihiin qaabka aad u tasheena waa qaab qurux ah ee goorma aad dhammaynaysaan dharkan harqaanlihii koowaad ayaa yidhi waa shaqo badan oo adag oo daal badan leh fiiri shimbirtan aan ku qurxinayo iyo fiyooryaashan quruxda badan waxaan rabnaa inaan ku sawirno dharkaas shimbiryaalkan quruxda badan iyo fiyooryaashan quruxda badan ee wasiirow ma ka heshay quruxda shimbirkan aan ku sawirnay wasiirkii hoos ayuu naftiisa kula hadlay wallaahi doqon ayaan ahay maadaama aanan arkaynin waxa dadkan ay sheegayaan wuxuuna ugu jawaabay haa aad iyo aad ayaan ugu helay sharaxaadda shimbirka qaab fiican ayaad u samaysteen oo u xaradeen boqorkan aad ayuu u jeclaan doonaa sharqaanlihii labaad ayaa yidhi soo dhowow wasiir taabo dharkan wasiirka ayaa u soo dhowaaday sharqaanlayaashii gacantiis ayuu soo taagay laakiin waxba ma dareemin wasiirkii ayaa yidhi ilaahay baan ku dhaartee waa dhar aad u fiican oo weligay wax la mid aanan taabanin harqaanlihii koowaad ayaa yidhi waan daalnay waxaad noo weydiisaa boqorka inuu xoolo kale noo soo diro sababtoo ah lacagtii hore waynaga kala go'day oo waan ugu filnaan weysay wasiirkii ayaa yidhi wuxuu u baahan yahay dharkan iyo midabadan quruxda badan iyo faabrikadan aad ku samaynaysaan lacag aad u tiro badan wuxuuna ka ballan qaaday in fariintooda uu gaarsiin doono boqorka markii wasiirka uu ku laabtay qasrigii boqortooyada wuxuu ugu sheekeeyey sida u qurux badnaa dharkii uu soo arkay iyo sida loo xardhay iyo midabada kala duwan ee laga sameeyey kadibna wuxuu u sheegay in xoolo dheeri ah ay u baahan yihiin nimanka dawaarlayaasha ah dhowr maalin kadib ayaa boqorka wuxuu u wacay wasiirka labaad lacag ayuuna usoo dhiibay asagoo ku amray inuu lacagtaas u qaado oo u geeyo labada dawaarle ama sharqaanle uuna soo eego dharkan aan caadiga ahayn wuxuuna u sheegay in wasiirka koowaad uu aad u ammaanay dharkii uu soo arkay wasiirkii labaad ayaa aaday gurigii labada dawaarle wuxuuna u tagay labadooda oo mashquul ah siday wax ay tulayaan oo kale laakiin wax la tulaayay ama wax dun ah oo meesha yaalay ma jirin wasiirkii labaad ayaa isweydiiyey alla doqon miyaan ahay alla wasiirka koowaad maa iga caqli badan maadaama uu soo arkay dharkan la sheegayay anigana waxba ma u jeedi dadkoo dhan waa igu jeesjeesi doonaan wasiirkii labaad ayaa yidhi waa dhar qurux badan wallaahi harqaanlihii koowaad ayaa yidhi ma ka heshay wasiirow dharkan fiiri mala yaabtay fiyooryaashan aan ku sawirnay shimbirkan aan ku taxnay fiiri sida uu qurux badan yahay wasiirkii labaad ayaa yidhi haa aad ayuu u qurux badan yahay wasiirka labaad ayaa ka baqay in labada harqaanle ay gartaan inuusan waxba arkin markaasuu xoolihii uu waday si deg deg ah meesha ugu dhaafay si deg deg ahna u baxay oo u laabtay qasrigii boqortooyada markii qasriga boqortooyada uu tagay dadkii wuxuu u sheegay inuu soo arkay dhar aan caadi ahayn dhar uusan weligiisa arkin quruxdiisa dadkii boqortooyada ku noolaa ayaa warkii dhan wada gaaray oo warkii magaalada dhan uu ku faafay in boqorka loo samaynayo dhar uusan arki karin qofka doqonka ah oo waxaa arki kara oo keliya dadka caqliga leh dharkaasoo loo samaynayo dadko dhan ayaa waxay ka sheekaysanayeen in dad yar oo keliya ay arki doonaan dharkan maadaama dadka badankiisa ay doqomo yihiin dad badan ayaa soo buuxu dhaafiyey albaabka harqaanlayaashii iyo albaabka qasrigii boqortooyada iyo gudaha qasriga boqortooyada labadaba dadkoo dhan waxay xiise u qabeen inay arkaan dharkan layaabka leh marka boqorka uu soo xirto labadii dawaarle ayaa sanaadiiq kusoo qaaday dharkii guriga boqorkana u soo qaaday waxayna ku dhawaaqeen in dharka yaabka leh uu ku dhex jiro sanduuqyada waxay u sheegeen boqorkii inuu dharkiisa iska siibo uuna soo gashto dharkan yaabka leh boqorkii markuu furay sanaadiiqdii waxba kuma arkin oo eber ayuu ahaa labadii dawaarle gacantood ayay taageen ayagoo wax ka soo bixinaya oo kale ayagoo u muuqday inay dhar gacantooda ku xambaarsan yihiin laakiin qof arkay dharkaas oo sanduuq laga soo bixinayo ma jirin oo meesha joogay boqorkiin dharkii ayuu soo xirtay laakiin qof arkay dharkaas ma jirin boqorkii waxa kaliya ugu jiray wuxuu ahaa dharkiisa hoose dharka hoos laga qaato marka taas macnaheedu waxay tahay inuu qaabanaa boqorka wuxuu u haystay in dadka kale oo dhan ay u jeedaan dharkan quruxda badan uu soo xirtay gacmihiis ayuu kor u taagay isagoo u malaynaya in dhar uu sido oo kale ala dharkan ma qurux badno ayuu weydiiyey dharkii wasiirkii koowaad ayaa ku qayliyey boqorkaygow waa dharkii ugu qurux badnaa ebed aad soo xirato wasiirkii labaadna si lamid ah wuxuu ku qayliyey waa sax waa dhar aad u qurux badan midabo cajiib leh ayuuna ka samaysan yahay dadkii oo daawanayay labadii wasiir ee caqliga badnaa iyo boqorkii ayaan wax dhar dushiisa ku arkin boqorkii waxay arkeen ma jirin laakiin kulli waxay ku wada qayliyeen haa alla qurux badnaa dharkan maanta aad soo xiratay maadaama qof walba uu ka cabsanayay in loo maleeyo inuu yahay qof doqon ah maadaama dharka uusan arkin
boqorkii ayaa damcay inuu qirto oo dadku u sheego inuusan waxba arkin una jeedin, laakiin wuxuu ka baqay oo ka cabsaday in dadka ay ku jeesjeesaan oo ugu sheegaan inuu yahay nin doqon ah, maadaama dharkan quruxda badan oo uusan arki karin qofka doqonka ah ee boqorku u arki waayey. boqorkii ayaa naftiisa ku yidhi, alla dadkan oo dhan waa arkeen, kulligood waa dad caqli badan, anigana waxaan ahay nin doqon ah. laakiin maskaxdiis ayuu sirtaas ku qarsaday, afkiisana waa xirtay. wasiirkii koowaad ayaa boqorkii ku yidhi, ma u jeedaa shimbarkan sida loo xardhay dharka boqorkaygow? aad ayuu u qurux badan yahay. boqorkii kor ayuu madaxiisa usoo qaadeen, wuxuuna yidhi, haa, waa qurux badan yahay. wasiirkii labaadna wuxuu raaciyey, fiyoorahan aad ayuu u qurux badan yahay, fiiri. boqorkii mar labaad ayuu madaxiisa kor usoo qaaday, wuxuuna yidhi, haa, waa qurux. kadib boqorkii wuxuu la hadlay labadii dawaarle, wuxuuna ku yidhi, shaqo fiican ayaad qabateen, dhar aad u qurux badan ayaadna ii samayseen. kadib boqorka waardiyaashiisa ayuu ku amray in xoolo badan la siiyo labadii dawaarle. labadii dawaarle meesha ayay ka dhaqaaqeen ayagoo u mahad celinaya boqorkii. boqorkii ayaa wuxuu dhex socday hoolkii weynaa ee boqortooyada. dadkii oo dhanna waxay ku qaylinayeen, alla qurux badnaa dharkan maanta aa soo xiratay, waa dharkii ugu qurux badnaa boqorkeenow. boqorkii ayaa dharkiisa ku farxay oo ammaantii dadkana aad iyo aad ugu farxay. wuxuuna u socday asagoo gacantiisa kor u qaadaya sida inuu dhar kor u qaadayo oo kale oo aad u weyn. si kadis ah ayaa boqorkii wuxuu maqlay wiil yar oo aabbihiisa weydiinayay, aabbow, aaway dharkan la sheegaayo, aniga waxba ma u jeedi, waxaan arkaayo ma jiro. aabbihii ayaa ugu jawaabay, aniga xitaa waxba ma arko. nin kale oo meesha jooga ayaa wuxuu yidhi, boqorka dharkiisa hoose oo keliya ayaa ugu jira ee wuu qaaban yahay. nin kale oo labaad ayaa yidhi, aaway dharkan quruxda badan oo la sheegaayo, aniga waxba ma u jeedee. wax yar kadib dadkii oo dhan ayaa wada qayliyey, aaway dharka, aaway arka, anaga waxba ma aragno, ay ku wada qayliyeen dadkii. boqorkii ayaa eegay wasiirkiisa koowaad, wuxuuna ku yidhi, aniga xitaa waxba ma arko, wax dhar ah oo meeshan yaalo ma jiro, dharkan waa khiyaano iyo dhagar. wasiirow, nimankan adigay ku dhagreen, adigana annagaadna dhagartay. wasiirkii ayaa aad u xishooday oo khajilay, bannaanka qasriga ayuuna aaday. wasiirkii labaad ayaa wuxuu raadiyey labadii harqaanle, laakiin waa soo waayey. boqorkiina gurigiis ayuu ku laabtay asagoo weji gabax, ceeb iyo doqonnimo badan dareemaya. carruurey, sheekadan waxaan ku baranaynaa waxyaalo badan oo ay ka mid tahay in dadka boqortooyada ah ay muhiim tahay inay ku mashquulaan dadka madaxda ah. haddii boqor qofku u yahay ama wax walba u yahay, in waxyaalaha dadkooda danta ugu jirta inay ku mashquulaan, ee aysan shaqo ka dhiganin waxyaalaha oo malaayacniiga ah, sida in boqorkii uu ka tegay shaqadii boqortooyadiisa oo uu ugu tegay dadka oo wasiiradiisa ah, oo iska raacday inuu isqurxiyo oy dhar uu xirto iyo waxyaalo kale oo malaayacnii ah. sidoo kale waxaan ku ogaanaynaa in dadka beenlooyaasha ah ay ka faa'iidaystaan dadka noocan oo kale, maadaama dadka noocan oo kale oo madaxda ah ay jecel yihiin oo keliya in la ammaano, in dad oo ku ammaana gabayo ama dad u ammaana waxyaala been ah oo aan jirin inay lacag ka dhammaystaan oo xoolahood laga daldashto oo dadka beenlaawayaasha ah ay ka daldashtaan. sidoo kale waxay noo caddaynaysaa in haddii qofka uu u qarsan yahay dhaqan ama muxuu ahaa waxyaalo oo naftiisa ay leedahay oo qaladaad ah, dadka uusan ka qarin karin. sababtoo ah haddii qofka dabeecadiisa ama dhaqankiisa uu dadka ka qariyo, maalin uun ay bannaanka soo baxaysaa, dhaqankiisa runta ah bannaanka uu soo baxaya, maadaama hadda ay dadka dhan u caddaatay in ninkan boqorka ah uu ahaa nin doqon ah oo caqli badan aan lahayn, oo dadka hortiisa sidii ugu xumaa oo ugu dul ceewoobay. soo marka ma qarin karo qofka mar walbo waxa dhaqankiisa runta ah, weligiisa ma qarin karo, maalin uun ay bannaanka soo baxaysaa. carruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay. ilaa sheekada kale aan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum.